بسم الله الرحمن الرحيم إن مجيء سدا وتقانن وبيقة أفهم محمود إن وحن فيديو كان أوريكود جرينا يا أم أودويا إن أن برشة سوماليات أم أصحابتي ده أن لو بدأوا إن أرمى الحريرة دمر كسوماليات kuwaas oo aad ii damqaya markasta oo aan maqlo dhibaatooyin ku dhaca dumarka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ee adduunka ka joogaan khaasatan marka laga hadlayo dalka gudihiisa waxyaabaha had iyo jeer soo noqnoqda isla markaasna aniga deeqa ahaan idamqa oo jirkeyga damqa dameerkeyga dhiba dadnimadeeda dhiba igu qasba igu kalifa inaan ka hadlo mar walba waa waxyaabaha gabdhaha Soomaaliyeed ku dhaca ee ku sameeyaan ragganaga Soomaaliyeed hadana ma ahan dad shisheeye ah ma ahan dad ajnabi ah oo meel ka imaaday ma ahan rag qoomiyad kale ka imaaday ma ahan dul kale oo meel kale ka imaaday waa niman ama rag Soomaaliyeed waa kuwii nala dhashay kuwii difaaci lahaa waa kuwii noo istaagi lahaa waa kuwii garabkeena ahaa waa kuwii cadowga naga dhicin lahaa waa kuwii wax walba noo qaban lahaa oo garabkeena midig ahaa lahaa waxyaabahaas oo kale markaan arko wallaahi waa damqadaa waan ooyaa wax badanna waan isweydiiyaa su'aalooyin fara badanna maskaxdeydana waa iska weydiiyaa inkastoo jawaabna aan helin ma rabo si qoto dheer inaan uga hadlo waxyaabaha xadgudubyada ah ama dhibaatooyinka ah haddii ahaan lahaayeen dhaqankanaga Soomaaliyeed ee u fududaayeen gabdhaha Soomaaliyeed inay ku dhacaan inaan uga hadlo videogaygan oo aan uga hadlo hase ahaatee waxaan jeclaan lahaa dhowr qodob inaan ku xuso videogan aan isla markaasna aan u soo bandhigo asxaabteyda in ay ila dhageystaan ama ila ogaadaan waa qodobka koowaad waxyaabaha had iyo jeer soo noqnoqda ama dhagahanaga mar walba ku dhaca maqalna mar walba waxaa waaye gabar uu dilay ninkii qabay oo dilay waxaan kala jeedaa jirdil u geystay ninkeeda noocay noqotay jirdilkaasi asagoo garaacay jirka jug inta ku dhaftay daqar u geystay il jug kaga dhaftay madax ka daqray gacan ka jabshay lug ka jabiyay dhabarka wax kaga dhaftay waxyaabaha qaracan kale oo laga xumaadana ay tahay ilmo caloosheeda ku jira kasoo riday waayo waxaan ognahay gabadha Soomaaliyeed ama gabar kasta oo meel walba joogto ama noocay doonto ha noqoto ama qabiil qoomiyad doonto ha noqoto dumarka ama gabadha waxaa Ilaahay u abuuray in ilmo caloosheeda lagu abuuro biologically in Ilaahay caloosheeda ilmo ku dhex sameeyo because ayada dhexdeeda warshad baa ku dhex taal marka ninkii rag ahaa asaga wuu ka xoog badan yahay si kastaba wuu ka duwan yahay gabadhan maxaa yeelay ayada marxaladooyin kala duwan ay maraysaa marxaladooyinkaas ay maraysaa asagoo kaga faa'iideysanaya jireeceeda buu gabadhaas xadgudubyo kala duwan u geysanaya marka jirdilkaas oo u geysanayo baa waxaa ku dhacayso in ay
marxaladooyinkii ay ku jirtay darteed dhibaatooyin usoo gaarto qaar fara badan xataa waxaan ogahay ama aan maqlay ama indhahayga ku arkay jug ninkeeda uu ku dhuftay inay u dhinteen ama gacantiisa ay sababsadeen. marka waa waxyaabaha laga xumaado laga damqado aanan habbooneyn in qof bilaadan oo nafli ah in lagu sameeyo. taasi waa midda jirdilka ah. waxaa intaasi dheer oo jirdilkaas usii dheer in maskaxiyan dhaawaceedana loo geysto, waayo waxyaabo kala duwan oo gabadha ay dhibsanaysa lagu sameeyaa. hadday noqon lahayd abuse ama maskaxdii caay, marka walba in la caayo, hadallo xunxun lagu dhaho, hadallo ay dhibsato lagu yiraahdo, hadalladaas xunxun ama waxyaabahaas xunxun oo lagu dhahayna ay mar walba soo noqnoqdaan, gabadhii ay niyad jabto oo niyad jabka kusoo noqnoqdo ilaa ay gaarto heer maskaxdii dhaawac uu ka gaaro, haddana loo garaabin, oo haddana jirdil usii dheeryahay, oo haddana dhibaatooyin kale oo haddana family ama gurigii usii dheeryahay. gabadhaasi ay heer psychologically ay dhaawac noqoto ama ay la waalato. waan aragnay shakhsiyan, waan arkay, waan maqlay gabdho waashay oo waaw noqday oo wax daryeelo waaye. ninkina markay waalato ka dhaqaajiyay bedelkii uu daryeeli lahaa oo wax u qaban lahaa, waa ninkii qabayde oo wax u qaban lahaa, oo xanaaneyn lahaa, oo kargareen lahaa, oo isaga dhaqaajiyay to caafimaad qabo ka raacay. waa waxyaabaha dhibaatooyinka leh oo laga xanuunsado oo laga damqado oo qof bilaadan ah oo damiir leh uusan u dulqaadan karin, oo anigana mar walba aan ka damqado oo ka xanuunsado oo ugu kalifto inaan ka hadlo oo dhowr siyaabood uga hadlo. wax laga xanuunsadana way tahay in nin rag ama nin Soomaaliyeed waxaasoo kale u sameeyo. kastoo ragga Soomaaliyeed oo dhan isku mid ahayn, laakiin rag sameeyey baan aragnay oo anigaan arkay. taasi waa midaas. sidoo kale oo hadda ayaamahan waxaaba dhacaysaba in gabadhii haddana la kufsaday. kufsi waa la maqmaqli jiray. kufsi gabaraa la kufsaday, waxyaaba iska caadi iska aheeda. gabar waa la kufsaday, wiil baa gabar kufsaday. waayo kufsi markii laga hadlayo waa xoog gabadhii oo xoog ayadoo la awood la isticmaalayo lagu tagay ama lagu galmooday. because hadday diiday waa against her will, waa la qasab iyo xoog. because ninka wuu ka xoog badan yahay, isagoo xoog iyo awood u isticmaalayo buu gabadhii xoogay. markuu xoogay buu halkaas dhib ugu dhibaateeyey. dhibkaas ayadana waa mideeda dhibaatooyinkeeda ayadana wadata, oo si maskaxiyan bay dhib u leedahay, physical oo muuqaal ahaan bay dhib u leedahay, dhibaatooyin dambe oo cudur iyo xanuuno kale iyo waxyaabo kale ayay iyadana leedahay oo ma rabo iyadana inaan si faahfaahsan hadda uga hadlo. laakiin waa dhibaatooyinka ugu weyn bay ka mid tahay oo gabdhaha dumarka Soomaaliyeed haysto ama loo geysto oo ragga Soomaaliyeed ay u geysanayaan. oo hadda waxa usii dheerba oo hadda ilaa dhowr kiis la hayaa in gabadhii markii iska caabin sameysay oo ninkii xoogayay oo xooga u sheeganayay iska caabisay in bistoolad ila waayo Soomaalida hadda wada hubeysan tahay. qoryaa xabad baa la haystaa, inta xabad soo qaatay bahalka uu sameeyay oo kaga dhufto si uusan nin dambe u damcin, si uusan ayna rajo dambe u yeelan. bahalkii xabad looga dhuftay waa dhibaato iyadana naftarkeeda iyadana mudan iyadana naftarkeeda
in sidee tahay ayadana in looga hadlo ama xal loogu raadiyo isto halkan adag yahay laakiin bulshada in lagu baraarujiyo mudan waa intaas dheer inta raggii gabdhaha qabay inay haddana dhibkii markuu fara batay ilaa dadkii way caadaysteen wixii dhaqan bay iska noqotay nin naagtiisa dilay caadi waayo waxaa lagu leeyahayba waxyaabaha aniga igu mucjisada badnaa oo igu xanuunka badnaa oo igu yaabka badnaa oo aan aad wax qaar caadi ila noqotay aanba filin waa ila noqotay oo aan malaysan waay waxay ahayd in markii gabadhii ninka ka xoog badnaa dilay jir dilay ama wax ku dhufto intuu gabadhii masaakiinta ahaa uu dilay dee gabadha dad bay leedahay markay damacda inay dacwootay dadkeedii u dacwootay waxaa la yidhi haddee ninkaadaa ku dilay maxaan ka qaban karnaa ceeb bay nagu tahay anaga ninkaada inaan la hadalno dhahno war gabadhaada naagtaadaad qabtay maxaad u dishay ceeb bay nagu tahay waxaa saas lana waa walaalkeed waa aabihii waa hooyadii waa dadkeedii ehelkeedii waxaa lagu leeyahay gabadhii ooynayso bararanayso oo dhaawacan oo xanuunsanayso oo gurigeedii kasoo tagtay oo istiraadadkeedii ehelkeedii naxariis usoo raadisay markay u timid waxaa lagu yidhi haddee aniga ninkaadii waxaad isku disheen ma garanayno nin naagtiisa isdilay waxaan ka qaban karna ma lahane haddee arrimihiinana ma dhexgali karna si hoose bal intaad u xalisaan haddee walaalay adigana ninkaada u noqo la heshii imagine oo gabadhii dilneed taqraneed dhaawacneed xanuunsaneed dhan kastaba mentally physical emotionally dhan kastaba dhaawacneed baa haddana lagu leeyahay orod dad monster inta u tagtid raaligareeyo waa ninkaada u dulqaado las joog oo la seexo imagine what kind of life is that waa waxaan la yaabay qaadan waayo oo aamini waayo in my life marka waa waxyaabaha nimankana ku dhiirigelinayo inay dumarkooda maalin dilaan gabdhahana ku niyadjibinayo inaysan iska caabin sameynin inay waxaan normalize gareeyaan aysan ka hadlin aysan cabanin aysan complain gareynin aysan dacwoonin aysan u arkin wax khayrul caadi ah inuu ninkeeda dilo uu jir dilo uu caburiyo inuu silciyo inuu nolol hel geliyo uu nolol xun geliyo inaysan u arag wax weyn waxyaabaha ku dhiirigeliya gabadha in ninkeeda ugu dulqaadato waxyaabaha nolosha xun u gelinayo waa dadkeeda waxay ku sameynayaan bade waa bulshadii dadkeeda familkeeda her own family support la-aantii ama lack of support from her own family yaa gabadhaasi waxay ku noqonaysaa disappointment discouragement so because of that gabadhii waxay sameynaysaa inay la qabsato markay la qabsato wixii normal ay noqonayaan hadday normal noqdaan way iska soconaysaa gabadheedii iyadana wixii arkaysaa hadhoodii gabadhii iyadana the same thing ku dhacayaan gabadheedii kale same thing ku dhacayaan then waxay noqonaysaa wixii kind of wax oo inheritage oo liska dhaxlo oo saas u socda wiilkii aabihii hooyadii dila hortiis ku dilay buu arkaya wuxuu leeyahay this is great aabaha hooyada wuxuu dilay wuu ku xoog badan yahay this is how it's supposed to be dil adnigana naagtaada hadhoodii
wixii wax fiican bay u arkayaan iyo culture-kii noloshii social life-kii dhan waxay noqonaysaa family-kii wixii noloshii family-kii social life-kiina affect gareynaya wixii way soconayaan from one stage to another sidaasay ku soconayaan then the whole thing will be fucked up mabade marka waxaan ka hadlaya haddaa usoo noqo tobikeyga waxaan ka hadlaya oo ugu muhiimsanaa waxay ahayd waxyaabaha dhacay oo gabdhaha ku dhaca oo dumarka ku dhaca way fara badan yihiin laakiin waxaan jeclahay inaan xaduudeeyo oo oon scope geliyo oonan ka bixin scope-kaas ama xaduudaysaan ka bixin dhowr qodob hadda waan ka hadlay jirdilkii kufsigii iyo gabadhii sidii loo jirdilayay in maalinka dambe ninkii uu haddana uu ku dhiirido inuu yiraahdo jirdilkii hadda waaba laga tagay waaba laga dalacabay wax markaad samaysid kusoo celcelisoo samaysid maalinka dambe waa daalaysa xaaladay maxaaba waxaan maameel kale ugu gudubtid promotion aad raadinaysaa you need to promote maalin walbaa samaynaysa aabaha wuu samayn jiray awowga wuu samayn jiray you need to promote ya soo ma fahmin marka promotionkii baa wuxuu noqday promotionkii baa wuxuu noqday in promotionkii baa wuxuu noqday what okay promotionkii baa wuxuu noqday in lagu promote gareeyo in la dilo marka hore waxay ahayd jirdil cay kufsi waxay ahayd iyo waxyaaba iska minor ahayd hadda waxay noqotay ninkii inuu dilo gabadhiisii xaaskiisii xabad soo qaato barac kusii kow oo la isugu imaanba then he moves around nothing is like nothing happened it's like nothing happened isagoo waxba dhicin buu u soconaya it's unfortunate actually so marka waxaan ka hadlayay dhowr qodob bay ahayd dhibaatooyinka horta dumarka haysta way fara badan especially soomaalida dumarkanaga dhibaatooyinka haysta inkastoo nalala wadaago dumarka kale oo adduunka ay nala wadaagaan dhibaatooyinka aan kala kulano ragganaga ama nimankanaga haddana ragga Afrika dhibaatooyinka Afrika raggooda ee dumarka ku sameeyaan haddana waa ku aad u xun haddana Soomaalidii oo islaamka ahaa 100% waxyaabaha xunxun aad ku xunxun caaqnimada ah ee dumarkooda ku sameynayaan oo aan islaamka totally aan islaamka haddana way nagu badan yihiin aadayna ugu badan yihiin because ninkan asagoo diin leh waxaa arkaysaa kuwa wadaada ah oo burka halkaas jooga oo surwaal lagu gaaban xiran oo dariiqaas markay marayaan assalaamu calaykum oo kula gurigooda iyo dumarkooda siday ula dhaqmaayaanna ma malaysan kartid you can't even imagine iyo siday mistreat garanayaan gabadhooda iyo xaaskooda si u mistreat garanayaan you can never even imagine iyo waxyaabay ku sameynayaan aawa diintay barteen aawa cilmigay barteen ma in gar la deysto surwaal gaaban xirtaba cilmigay barteen aaway
waxaan aaminsanahay oo aqoonteeda intay la eg tahay ay tahay oo diinta anada ayna bartay ah in gabdhahaas dumarka islaamka ah in diintanada xaquuq fara badan ay siisay privileges badan ay siisay we have privileges aad u fara badan baa nala siiyay ma qof nagu support garanayo ama privilege ganaya no ogol ma lahan haddii raggeena ay loo fiiriyo way jiraan very few of them 1 2 3 4 waa jiraan oo ogol in gabdhaha xaqooda la siiyo way jiraan gabdhaha sidii shareecada iyo diintanada quraankanaga lagu sheegay in lagula dhaqmo ama ay sameeyaan rabaan si honestly ah u sameynayaan oo sharciga ama diinta u implement gareynayaan way jiraan waa kuwa laba saddex laakiin most of culimadeenada ma rabo inay u gafo laakiin waxyaabaha ay sameynayaan it's not right inbandi marka aan kusoo noqdo topic dhibaatooyinka gabdhaha dumarka haystaan way farabadan wallaahi way farabadan aad iyo aad bay u badan yihiin videogeygan haddaan dhaho waan kaga hadlayaa ama ku sheegayaa caawaaga ii bari doona aad iyo aad bay dhar barnaamijyaan ugu talagalay inaan kaga hadlo si deeply ah with evidences with clips with stories with so many a series of programs are in uga hadlo hase ahaatee hordhacyada barnaamijyadeedan this is just hordhac on by preface and the background waxaa waaye horta bulshada waxyaabo badan oo la normalize gareeyaa jiraan Soomaali haddana waxyaabo badan oon caadaysanay oon u aragnay inay dhaqan fiican yihiin oo haddana dhaqan xun ah baa jiraan waxaas rabnaa inaan ka gudubno wayna adkaanaysaa waqtina way qaadanaysaa in laga gudbo laakiin waxay u baahan tahay dhabar adeeg in la sameeyo waxay u baahan tahay wacyigelin badan in la sameeyo waxay u baahan tahay bulshadii hab dhaqankooda in wax laga bedelo waqti badan bayna u baahan tahay taas howl badan bay u baahan tahay dadaal fara badan bayna u baahan tahay is not something that will happen overnight I know hase ahaatee waxaan aniga shaqsi ahaantayda rabaa arrintan wacyigelinta ah khaasatan ay ku saabsan dumarka arrimaha la xiriira dumarka inaan wax badan aan ka hadlo si mutadabacnin anoo cidno ii dirin anoo cidno wax kaga raadinin anoo cidno wax kaga dooneynin anoo cidno any personal interest aan ku raadinin kaliya rabo waxyaabaha aniga experience-ka u leeyahay iyo waxyaabaha aan arkay iyo waxyaabaha damirkeyga ka damqaday iyo waxyaabaha aan mar walba aan u dulqaadan karin inaan ka hadlo dadkeygana la wadaagiyo asxaabteyda inaan kusoo bandhigaa rabo inaan dadkeyga ku wacyigelin meelo badan wax kaga tuso waxyaabaha dhibaatooyinka ah haddaan intaas ku limid gareeyo inkastoona sheegay barnaamijyo badan aan u sameynayo oo dadka dhibaatooyinka kaga dhaceen aniga shaqsi ahaanteyda waxyaabo badan stories badan baan hayaa waxyaabo badan oo experience baan hayaa waxyaabo badan oo idinla wadaagi doona jirto laakiin ma rabo hal mar inaan wixii oo dhan idin sheego ama halkan idinkula wadaago series of programs baan rabaa ama series wixii inay noo noqdaan ila socotaan idinka aftarkiina inaan
waxaan rabaa inaan wixii aad igu darsan kartaan oo kale aad ila wadaagtaan qolooyinka kale ee gaari kartaan haddii la shaargaran karo aad la shaargaraysaan si barnaamijka u balaartaysan noqon wax jira comment ku eg u noqdaan wax bulshadii dhammaan ay ka wada faa'iidaystaan ma dhahayo kaliya aniga aqoonteeda ayaan leeyahay waxyaabahan ka hadlayo waxaa laga yaabaa in kaliya qeyre ay wado aanan lahayn aqoonti dad iga aqoon badan ay jiraan dad iga khibrad badan ay jiraan dad waxyaabo badan xog fara badan hayaan ay jiraan laakiin anigii aan nahay initiator oo barnaamijkii aan bilaabay laakiin aan aaminsanahay inuu sii socon doono marka waxa kale ugu muhiimsan oo rabaa caawa oo aad iyo aad ugu muhiimsan marka laga soo tago dhibaatooyinka aan wada ognahay oo dumarka haysto oo qaarkoodna ay waadax yihiin oo iska cad yihiin oo banaanka yaalana wada ognahay qaarkoodna wixii daboolana daha aan ka qaadi doono dibna aan u dhigan doono oo barnaamij dhan ooga hadli doono laakiin waxa ugu weyn iguba waxyaabaha ugu weyn iguba ayada iga daran dhibka haysta dumarka waxay tahay mar walba waxaa laga hadlaa oo qolooyin fara badan xataa ay jiraan ama NGO ha noqoto ama dad kale ha noqoto oo lacag lagu raadsada waxaa maqlaa women empowerment women baa saan loo qabtay tacadiyada dumarka saan laga qabtay kan baa la sameeyey kan baa la yeelay kan mashruucyo fara badan baa dumarka magacooda lacag loogu soo qaata haddana wax lagu qabto ma jirto taas naftarkeeda waxaa hay'adihii sameyn lahaa isla xisaabtanka oo dowliga ah ayaa meesha ka maqan sababtaas ayaynan u dhicin in ay dhacdo in lala xisaabtamo hay'adahaas ama NGO-yadaas magaca dumarka inta lacag kusoo qaato haddana aysan waxba qabanin ayadana waa qodob muhiim ah in wax laga qabto ama naftarkeeda spotlight-ka lagu shida laakiin waxaa kasii daran mid bay ka daran tahay waxaa kasii daran dumarow gabdhow habeenow islaamow waxaa nahawa magacaas gabdhaha Soomaaliyeed markii laga hadlayo meel walba waxaa laga hadlaa kaliya inay jilicsan yihiin inay weak yihiin inay u baahan yihiin wax loo qabto inay dhibaataysan yihiin inay mar walba dhanka negative-ka ayaa laga hadlaa intaan qabo wanaagooda inkastoo ayada dambe oo sanadadan dambe ay dumar fara badan ay soo baxayaan oo ilaa meel walba siyaasadii dhaqaalihii meel walba aan frontline-ka hadda aan ku jirno it's not enough for me that's not enough 25% that percent is not enough for me even 50% is not enough that's according to me marka waxaan ka hadlay qodobkaygan haddii asxaabta ila socota haddii si fiican ii dhegeysan qodobkan ugu muhiimsan waxay tahay dumarkan ayaga dhexdooda hadda tan si fiican baa researchkayga u sameeyey analysiskayga u sameeyey dhan kastaan ka fiiriyey rag fara badan oo nagu dacaadeynayo hadda dacaad maaha this is the truth and the reality ayaga naftarkooda hadaladooda waa qiimin kastoo dhowr jeer difaac badan sameeyey andhano waxaas ma jirto runta ragga kama nixisaa la yidhaahdo meeshii runta weebi jirta xaqiiqadii
baaba taaganba maxaanba difaac gala waxaa dhacday gabdhihii ama dumarkii dhexdooda inaysan isku roonin cadow number 1 in ay isku yihiin cadow number 1 ya waa dumarka dhexdooda cadow number 1 isku ah. Do you know why? I don't know. Laakiin sababo jiro baan aniga u maleeyay ama waxyaabo aniga aan u maleeyay ama reasons aniga aan ama justifications as ilaaday waxaas ayaa keeni kara in ay dhexdooda cadow isku noqdaan baan u maleynayaa inay tahay in dumarka isku cadow isku noqdaan. For instance hada dumarka maadaama evolution kan jiro iyo resolution kan oo hada frontline-kii loo soo baxayo gabdho badan ee siyaasadda ku biirayaan dhaqaalihii lagu hormarayo waxyaabahan horumarkan faraha badan oo socdo competition baa jira. For instance anoo kale waxaan fursad magaca gabar yaa waxaan ku helayaa xafiis inaan fariisto manager laga dhigo magaca gender oo dumar baan ku helay soo marka gender baan ku joogaa booskii dumar oo dhan anoo present gareynayo ama matalayo baan xafiiskaas ku fadhiyaa soo marka in leela tartamo oo ma competition gabar kale ay soo gasho maraba xaalayaaba aqoon inaan ku imaanin ama limited knowledge aan leeyahay aqoonteeda iska yar tahay laakiin aan igu caawiyay ama genderkeedii because aan dumar ana naftirkay wixii dadka kale ee lahaayeen ba iga dhaadhacsanay waqti gabar haddaan ahay am weak raggi lama midsi aqoontooda kale ma lahan kare however aan jaamacad soo maraxta aqoonta ninka ila midka ama ila da'da uu leeyahay kale ma lahan kare ka duwana sidaas darteed shaqadii oo isku equal opportunity aan u heli lahayn oo u tartami lahayn haddaan u tartana xataa equal opportunity naloo siin lahaa oo isku si aan soo mari lahayn baa waxaa laleeyahay ayada gender loo siiyo asagana caadi normal procedure-kii oo competition-ka ama recruitment-ka soo maro hala siiyo oo niman kale loo tirsanayaan ayadana gabar ahaan loo siiyo soo marka aniga aniga wixii ku soo galay nidaamkaas ku soo galay oo wixii iga dhaadhacsanayeen baa gabar kale camal meeshii soo galay ama normal process ku soo gasho ama ayadana gender ku soo gasho xidan ku soo gasho meesha timaado soo marka aniga waxaan dareemay ciriiri ah gabadhan inay xogaa meeshii ugu ciriirinayso gender ugu ciriirinayso oo hadhoodii aan noqonayno labo meesha ku soo badanayno anigana aan noqonayno kali saa ani u arka waaya waa fikirkiisa aaminsan meesha marka waxaa bilaabanaya iska riix wax laga si gabadhan qadka uga baxo gabadhii marka waxaa ku bilaabaya inaan pressure gareeyo oo nacab tusiyo oo soo dhaweynin aan nimanka kale ka xigsado aan ku diro dadkii oo shaqada ma qabsato kan lamba wamba gabadhii cadowgeeda inaan just waxaan rabaa inay meesha ka baxdo keligii inaan ku haro wayna dhacday meelo badan ay ka dhacday waa la arkay soo marka taas waa tii shaqada guryaha oo kale xaafadoo kale waa dhacaysaa waxaa arkayaa gabar baa xataa even personal life xataa gabar kale ka qorxan ama gabdhaha dhowraa joogaan gabar baa intaasoo gabdhaha nahay guruube hal gabara noogu qorxan
gabadhii she's catch nimankii kala dhan ayadii bay la hadlayaan ayaga la shukaansanayaan niman badan baa u imaanayo waxaan kale wax la hadlaya male they are cid rabta maaha maanta ayada bas aa lala shakaysanaya gabadhii out of nowhere baa lala diraa because hata waa la jeclaaday who knows ina nimanka xataa mid kamid ah hata uu gursana ama la gursana ama ay waxismaan nobody knows gabadhan it's not her fault it's God given gift waxa haysto waxa lagu soo raacay then because of that ba ayadii loo nacay waa qoriwa samaha xaasinimo gabadhana shaqo kuma laha it's not her fault waa la iska nacay waa lala diray waa cadadtinimo meesha ugu fogeed baa la gaarsiiyey waa one of the things oo waxyaabaha oo dumarka keenay inay cadow isku noqdaan haye taas waa mid waxaa dhacday ayadoo kale haddana for instance oo kale anoo kale guda degan guri qurux badanaa deganahay gabar baa isoo booqatay gurigii wuu qurxan yahay aniga habbileefan ku noolaa ninkeyga wuu jecel yahay I have to say all these things waxyaabaha dhaca practical life-ka gabadhii markay timaado her intention was good inay soo booqatay she was my best friend then this woman she will start inay envy dareento inay xaasinimo niyadeeda gashay dareento then waxay ka xumaanaysaa maybe she doesn't have that good life waxay ka xumaanaysaa aniga ma haysto this good life ee naagtan deeqa haysto how come that she will have a better life than me and I don't have that then she will start inay burburiso lifekeyga so that we will be in the same level Mamza yeah instead of doing that abayo aniga waa diga fiican tahay nala fiican baa haysataa ilaah ku siiyay instead of doing that had ka shaqeynaysaa inay nolosheeda burburiso so that we will be in the same level me and her as way Soomaalida u dhahdaan midin tahay kamid down to the marka waxyaabaha ugu xunxun oo dumarka dhexdooda isku sameeyaan oo ayagii dhexdooda horumar isku ogolaan oo ayagii dhexdooda xumaanta isku sameynayaan oo ayagii dhexdooda xaasinimo isku sameynayaan oo ayagii dhexdooda isku ogolaan horumar sidoo kale shaqadii kuwa haddaan ku laabto for instance waa badan oo kale hadda gabdho badan oo shaqeynaya maanta oo kale gabar kamid ah gabdhaha kala promotion heshay ama way ugu activesan tahay gabadhaas group baa loo samaysanaya waxaa la leeyahay she's bad guy harabnoowe waaba enemies walad gabadha because she didn't do anything else aqoonteedii bravenimmadeedii skillskeedii iyo waxyaabaha sameynaysa just for that cadownimada ku samaysa and yaa cadow ku noqonay who else asxaabtay it's really unfortunate then why the hell anaga olana marka waana la dhibaateeyaa waana la xeeleeyaa empowerment u baahan yahay qeele kan dib baan ugu dhaco kana sameeyeen don't you think that we are part of the problem yeah annaga dhexdeena hadda in empower garanayno then who do you expect in an empower garan no so because the guys out there waxay nagu dhahayaan you guys you women
We're saying every now and then that we are disempowered. Nobody wants us. We're not being given the chance. We don't have the equal opportunity. Blah 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 blah. And you are the worst enemies to each other. And it's true. Yeah. If I'm not empowering myself, first of all, myself is number one. Myself, myself. If I'm not empowering myself, if I'm not empowering my sister, because for instance, I'm in high position or in my workplace, I'm a manager, for instance, and then my colleague, Hiblayo, she needs assistance, she needs help, or maybe she doesn't need any help from me, but I need to empower her, to bring her to my level, to bring her to my same position, or to better position than me even, to empower her, to motivate her, to inspire her. Instead of doing that, what do? Yeah. I do the opposite. I start working while coming the other way around. It's really unfortunate. It's even embarrassment. It's like we are hypocrites. dhinacan kalena waxaa leenahay waana la xumeeyaa, waana la dilaa, waana dhibban qabnaa, saana nalagu sameeya, kana nalagu yeelaa. dhinacan kalena waxaa waay anaga cadow isku nahay. Which is which? Yeah? Which is which? dhinacan number one enemies anaga. dhinacanna we are complaining and crying to the world that we are disempowered by men. Yeah. It's like we are giving opportunity to the men to disempower us. Yeah. So marka waxa ka xun in annaga dumar instead of coming together to discuss our own issues, because we have common problems, we have common objectives, instead of us coming together to discuss our common issues, common objectives, we come together to discuss our misfortune, yeah? Our distractions, our our own misfortunes can maalin kasta ka shaqeynayna iyo sida isku noqon yihiin. aniga deeqo faadimo ma rabo inay harman karto, ma jecel. I feel bad haddaan maqlo maanta shaqada she's giving promotion. I feel it's like it's a bloating on me. I will not feel happy for her. Instead of just coming to her to congratulate her, say well done. Yeah. war waxaas in iska daa, shaqay waxaas in iska daa. waxaan aragnay dharkan maanta haddaan dhar qurux badan soo xirto oo shaqada la imaado, yeah, gabdha ka maseerayaan oo ka xumaanayaan bacdina. Instead oo inta ay imaadaan dheelaan deeqa dress qurux badan aa wadataa maanta, or just complimented by my dress in a positive and nice way. I just feel bad and I feel, why the hell is she wearing this nice dress, and why the hell, where did she get from? I feel bad about my dress. Yeah? Dresskii yaa laga xumaanaya, shaqadii yaa laga xumaanaya, nin wanaagsan hadaa hela laga xumaanaya, guri fiican hadaa hela laga xumaanaya, haddaan ilaahay qurux isiiyaa laga xumaanaya, haddii dabeecad ilaahay fiican isiiyaa laga xumaanaya, dadka la dhaqmaayo, haddii wax walba oo wanaagsan oo ilaahay igu deeqay baa laga xumaanaya. anigii baa cadow isku ah, laba isku xasdaya, mid kala dhihi karta congratulations, well done, shaqo fiican baad qabatay, hore u soco, ma jirto. subax kasta mid walba waxay ka shaqeynaysaa mid kale gooyadeeda. suuq haddii la joogo mid kale xaasinimadeeda iyo gooyadeeda iyo si horumar
aysan u gaarin bay ka shaqaynaysaa. ama suuqle ha noqoto, yaanyo ha gado, hilib ha gado, dhar ha gado, meel walba ha gado, xafiis ha fariisto, wherever she is, midba midda kale waxay ka shaqaynaysaa sidii midda kale aysan uga hormarin. oo ayada bas ee the shining star ay noqoto. Where the hell will you go once your sister? Media. Ani hadda kaliya horumar gaaro oo xidigahaas gaaro. xidigahaas haddaan gaaro oo walaashayda down to the earth ay jirto oo waxba haysanin oo qof inspire garaysa, qof motivate garaysa, qof garab qabtaysan, dhibaataysan tahay, dhib ku jirto. ani maxay taray markii xidig gaaro? inaan the top of the town noqdo maxay taray? inaan wax walba haysto maxay taray? even not empowering my own sister maxay taray? maxay taraysaa? waa nothing. so marka guusha waxay ku jirtaa yahanka wanaagsan ku jirta in sisters keepers la ahaado, in midda kale ay garabka u noqoto, ay buuxiso midda kale inay buuxiso. waxay wanaagu ku jiraa in xumaanta iska ilaaliyo. diinta naga ma sheegaysan diinta naga macaan in xasad isku noqdo. xaasidnimada waa la xumo. xaasidnimada ma sheegaysa diinta naga. meel lagu sheegana ma jirto xaasidnimo. meel xaasidnimo diintana ku sheegta ma jirto. meel xaasidnimo lagu sheega ma jirto. marka adduunka islaam baan sheeganaynaa, boqolkiiba islaam baan sheeganaynaa. waxaan sheeganaynaa dad isjecel inaan nahay. waxaan sheeganaynaa dad walaalo ah oo dhan kasta ka walaalayn, because diintanada waxaana leedahay una faraysaa inaan nahay dad walaalo ah oo mu'miniin. because aayad baa le innama almu'minuuna ikhwa. ma la kala sheegin nin iyo naag ma la dhihin, laakiin mu'miniinta dhammaantood waa walaalaha. mu'miniinta dhammaantood waa walaalaha. haddii walaalo la yahay walaaltinimadiisa practical ah in loo dhaco. in xaasinimo iyo xogti iyo alxumo iyo walaalka horumarkiisa ka xumo ka hor istaag uga xumo inuu horumar gaaro oo inaad tusisid isagana inaad ka xunto horumarkiisa, inaad cadow ku noqotid, inaad tiraahdo waayo u horumar u gaara. maaha waxa walaalaha lagu yahay. mu'minna waxaad ku tahay iimaankaagana ma saxsan dib inuu soo noqotida nin haddaan tahay wadaadnaa tahay. waa inaad dib soo noqona maclanada ku jira aan dib soo noqona. dumar haddaan nahay I'm gonna highlight this point in this topic. waa ku noqonaya barnaamijyo kalena waa u sameynaya. topican waa ku noqonaya very important. dumarow aa isku noqon war caawintinimo meel nama gaarsiinayso, xaasinimo meel nama gaarsiinayso, meel nama gaarana. that's why dhibka uga bixinaayan raggana dhibka inooga wadaan. that is why dumarka inta midda ka xaasaysan tahay uga dhib badan tahay. dumar oo dhan ma dhaha dumar wanaagsan oo xaasid ahayn oo nadiif ah oo daacad ah oo walaashood jecel inay horumar gaarto oo ka xumaanaynin oo maasha allah waa jiraan. ma generalize garanayn, laakiin 80% oo dumarka wallahi 80% oo dumar oo wada xaasidnimo
حاسدين 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 ولا حاسدين special شغل ما قدمت وحاسدين يهمني وروح برشا ورشخة ما عيني والبور ولا حاسدين هبلاي سحر حلس وسبب وحاسدين سيها ملك قارك عاود إيمانك إلهي كسي إلهي أنت كسي أنت قنعي أترى الحمد لله قاطع إيمان لحين تير إيمانك كمتها إيمانك ما إيمان ما قف حزده قف كله هرمنتيس قف كله حاسد كنا قرن وأركي وصاحر كده حقوقك كاني انتو كسو كتاي محوك ومهل العبد حقوقك كاني وين سو كتا وين ولي كل الدرة قال سو بروموشن كحلاي اما مهلين وين هلا وين لسيا seriously and we are claiming to be a Muslim Mormon seriously you need to double check on that. It's really saddens me every time I look at it saddens me actually. It really saddens me. It saddens me. Wallah. It really saddens me. gabar dumar oo gabar kale horumarkeeda ka xumaanaysa oo dagaalamaysa gabadhaas horumarka gaarta oo aanan ku gaarin see waxaas u hesha aanu u helaa see waxaas even we are challenging God see waxaas ku hesha aanu u helaa because Ilahi has talent. God gives different talents to different people. Halaga Ilahi talent inuu siiyo skills ilahi. Skills ka truha skills inuu wax ku hesho. It doesn't necessarily mean that you can get the same thing as she did. Then how are we going to challenge guys? Men دعوش كنا بنان كمل كل صوت حوا Women's Day. It's fucked up. I really hate ولا بينكم شيء. Women's Day هو وحس إن مركز سكون ودمها سكون معلاني هلا ولا مركز الله يعني because I hypocrite من أكتر. Personally, really in my life. Until my first, I mean, even a second, it never crossed in my mind. Why have life? I don't know. I should tell you. كهذا هرمرة أنا هرمرة أجار الملشة أنا شقة why more salary than you أقامنا يعني أما more promotion than you أهلا it never crossed my mind. هذا هلام ما شاء الله. That is the only word I use. MashaAllah. Allah Subhanahu. إلهي ما challenge بيناي ما دعوناي
madaxa intaa meel fariista maxaa u heli waa inuu helin ayuu u helan ma dagaalama mala dagaalay inta gafur u taalo mala dagaalamayo never found them wiilkay ka soo horbaxaan never gabar maanta iga horeysa ana haddaa harkaba I'll be proud of her. She's gonna be my role model gabar Soomaaliyada oh my god I'm gonna be proud of her. She's my role model whoever she is and wherever she is she's my role model I'm telling you gabar Soomaaliyeed oo iga horeysa nooc kasta iga horeysa professionally personally I feel more proud in arko gabar Soomaaliyeed oo horumar gaartay dhan kastana meesha horumarka gaartay I really feel proud maasha Allah haddana waxaan sameeyaa ayadoo kale kama qabo she will be my motivator my inspire she will be inspiring yeah soo marka qofka kawana ka xumaanayo oo dagaalama u dhahayo waxay horumar ku gaartay moral way kan papa bala some nonsense things energy why the hell would you waste your energy and time just talk about nonsense things because you feel ill about your sister's progress Before we even talk about our progress and development and empowerment, we need to go back to ourselves. Double check our iman. Not actually double check, reevaluate our iman. Because it's not fair. Islam Muslim at the same time we don't practice the Islam, we don't practice brain. It's not fair. It's not fair to ourselves, it's not fair to God. And it's not fair to everybody else. Allah inaan ka baqno dumar haddaan nahay xuquuq fara badan baan leenahay ilaahay wayna naxariistay suurad baa nalaga soo dejiy xaqaana ka hadlaysa boqol toban marka qur-aanka meel walba xaqanaga iyo waxa walba aan rabno inaan waxaan sameeyo we're supposed to be doing what our nation created. We are guided. We have privilege for the policy. God so fair and has so fair with us. So much. It's just upon us to appreciate all these privileges and say Alhamdulillah, thank you God 100 times. In every second of our lives, we need to appreciate Allah and say Alhamdulillah, 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 instead of just complaining and being ill about our sisters' progress and development. It's not fair. Yeah? Instead of focusing on the rights and privileges we have been given by Allah and saying and praying to Allah and just giving thanks to Allah and those privileges and being proud of how we are unique, how we are dignified from the rest of the human beings. We just focus on just we even it's not even fair.
despise ourselves before even others despise us. We humiliate ourselves in front of even us. It's not fair. What do you expect from others? If you don't despise yourself or humiliate